xildhibaan ari oo kala ah oo fadhiyo adigani aan taaganahay oo fadhiyo kursiga aniga igu qornaa lambarkiisa iyo dadkii aan matalahay inuu asaga ka warbixiyo ama dad aan waxba ka qusaynin kuraasta ay ka sheekayso taas ayadana waa arrin aad u xun aniga kursigayga waxaa la geeyay jubbada dhexe jubbada dhexaan ka soo jeedaa jubbada dhexe rahan buu ku maqan yahay waa kuraasta siyaasadda gobollada ku maqan marnaba in la xoreeyo laguma talagelin 12 sano ayuu saxtiga ka maqan yahay xilla wuxuu ka saaran yahay baarlamaanka Soomaaliyeed maadaama aan u arko gobollada barkood inay ku midoobeen inaan jubbada dhexe la qabanin taasoo la cadeeyay in hadda kursigayga gobol uusan shaqo ku leen xalay nin oday ah oo reerka ka tirsan uu ka hadlahay oo yidhi kuraasta jubbada dhexe uu ka hadlayay aad baan ugu xumahay amniga afaar interna way anigu amnigayga waxaan ka aqaanaa dawladda federaalka ciidamada qalabka sida wasiirka amniga ayaan ka rabaa qof iyo cod baan anigu ansixiyay meeshaan doorasho ku galaya amnigay u taallaa waxaa lagu daray markii wasiirka amniga loo yeero ee taliyaha ciidanka loo yeero ee ka booliiska loo yeero ciidamada qalabka sido bu'aala qorshaha kuma jira hadda laakiin ani halkaasaan rabaa in doorashada lagu qabto dadkayga degan waa liga dooran karaa waa meeshii aan ka soo jeeday laakiin waxa mushkil ah in lagu heshiyay waxaan dhihi karaa odayga xalay ka hadlayay iyo kan aniga 8 sano i haystay waxay ku heshiyeen inay shabaab lagu heshiyo Jubbaland inay u gadnaato jubbada dhexe Kismaayo no xildhibaan anoo kale baa wuxuu igu hanjabay oo hadda ku jiro kursiga la waayo Kismaayo la geeyo lama geeynayo way jawaabteeda ana fadhiyo kursiga lambarkiisa waa la yaqaanaa waxaan ku mahadinayaa guddiga ka soo shaqeeyay waa halkii aan ka soo galay way laakiin rahan kuma maqnaanta jubbada dhexe arrinta waxaan u dhabbandhigayaa baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan u dhabbandhigayaa dawladda federaalka ugu sareeyo taliyaha ciidamada qalabka sido ahna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan u bandhigayaa ra'iisul wasaaraha guddoonka baarlamaankana uu hor fadhiyaa waxaan leeyahay kama bixina jandaha qaraar baan keenayaa inaad ilaahan sixisaan waa inay jubbada dhexe aan ku galaa doorasho waa in soo doortaan dadkayga sidii loogu doodahay kuraasta waqooyi sidii loo ansixiyay maxaan ku ilaahay banaadir sida danteed dadkeena aan ugu shaqaynayno gobolkayga rahan buu ku maqan yahay waa la iibsaday waxaa iibsaday maamulkii 8 sano u naxsanaa dhaladaha jabinina lahaa maanta hortiina ayaan rabaa inaad gacanta igu taagtaan inaan waxaan rabaa qaraar soo jeedisaan jubbada dhaxan rabaa inaan ku galo waliba goodi baa la igu darayaa waxaa jooga xildhibaano badan oo isku deegaan nahay oo halkan ka tirsan oo jubbada dhaxan iskala soo gali doono aana ka wada tirsannahay waxaan rabaa gacan in lagu siiyo baarlamaanka sharafta leh xildhibaan baa igu goodiyay Kismaayo si looga qaadi karaa kursigaada laakiin nasiib wanaag igama saadan badnayn waxaan dhahay way kula tahay baan dhahay Soomaaliya kursigayga waxay u taallaa baarlamaanka Soomaaliyeed gudoomiye waxaan rabaa inaad iga aqbasho mooshin inaan keeno mooshinka laga qaado qaraarkana aan u yeerno taliyaha xoogga dalka jaralada waa inaan u yeerno maxaa uga dhigan maxaa uga qorshaysan gobolka Bu'aale wuxuu ka mid yahay gobollada la qabanayo 8 sano gudoomiye ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka wuxuu bixiyay malyan bay dawladda bixisay 330 baan leeyahay gobolkaas waxaa ku dhacay fayraska hadda xanuunka jiro maalin walba waa la aasaa dadkaas lacagta wax lagama siinin ma la xaqiijiyay meeshii la geeyay malyankii marka siduu sheegay darwiish waliba qadsul daa'im ah oo laguma shubin taasna ayagay u taallaa